waxa aan diyaarinaynaa waa fagaara ka hadla saameyn leh hadalkayga xasuusta qof aan fagaara ka hadlin male kuwa tiktok qabiilada ka caaya oo miiga ka qaataba waa fagaara ka hadlayaal laakiin anagu waxaan diyaarinaynaa fagaara ka hadle islaami ah Soomaali ah qaa'id ah kaasaan diyaarinaynaa waxaan diyaarinaynaa fagaara ka hadle dadka liid gareeya oo tusaale muuqda u noqda kaasaan diyaarinaynaa fagaara ka hadlaha idin kala hadlayno oo aan leenahay nabiga inagu yiri dacu ma la yacni war waxyaalaha ma la yacniga agtiina aan qiimaha kala hayn ka taga war hadalka badani khayr ma leh hadal yar oo dalaa'il iyo tusaalayaal cad la imaada war waxaydan aqoon ha ka hadlinine haddii waxa weeye ayna shayga garanayaan aamuska ku khayroontiin waxaan oo dhan waxaan diyaarinaynaa ducaadii berri dadka Soomaaliyeed u khaadibi lahayd oo intay self preparation sameeyaan oo nafsadooda diyaariyaan dadka Soomaaliyeed dhagahooda iyo indhahoodaba amaahin lahaayeen laakiin show off iyo TikTok waxyaalaha hadda anigu aan erayadan oo dhan idinku hormarinay waxa weeye oo aan cabsida qodobka ugu dambeeya aan uga dhigay intiinan haddaan public hadla idinka dhigno maanta cabsida hal shay baan hadda ku lumin karnaa marka qodobada laga tago wuuna inoo soo socda laakiin haddaan intiinan fagaara ka hadla idinka dhigo laakiin aanan boundaries iyo xuduudo hadal aynan lahayn oo intiinan caawa TikTok ciwaaneed aad furataan oo live soo wada gashaan 3,000 hoos idinka daawato reerna amiin ku wada qaadataan ma balaayan soo kordhiyay mise wanaag baan soo kordhiyay ya trouble baan keenay Soomaa marka waxaan doonaynaa fagaara ka hadle xuduud leh wax doona tawaaduc nafseed la oo oran kara shaygan anigu macluum uma ihi mana garanayo kamana hadlayo inta markuu soo diyaarsadana si kalsooni la masrax u maamulo oo u nashaada ayaan ka hadlaynaa suugaan Soomaaliyeed baa waxay ahayd ma wuxuu ahaa Ibrahim Gadle ma xasuusto wuxuu yiri dadka yaa hor iman kara dibnihiisa furi kara hadal deeqa oran kara hadal deeqaan doonaynaa marka dibna furkan anagu dibna furku dadka dhan baa dibnuhu u furay dibna maxaa la yiraahdaa bishima halkan maanta uma taagnin inaan dibnaha furno maxaa taagana lambar 1 dadka yaa hor iman kara dibnihiisa furi kara rugniga ugu adag waa hadal deeqa oran kara ku dadaali kara nabad wacyigooda duwi kara waxaan doonaynaa nin hadalkiisu saameyn bulsho oo togan leeyahay taban ma doonayno way isla faahna qodobka Soomaa marka muxuu yiri dadka yaa hor iman kara dibnihiisa furi kara hadal deeqa oran kara tana wada saarayna taawi laakiin haddaan ku iraado masraxa marka assalaamu calaykum masraxa markaad soo fuushid aynu neef qaadano cabsida aynu lumino dadka aynu dhex marno all these things waxaan la dagaalamayaa inaad cabsatid kaliya laakiin maxay ii sheegaysaa dad cabsida lumisay cabsidii waad lumisay waxaad igula hadli lahayd baan kaa rabaa hadal deeqa weeye marka tababarkeenu maanta awoodda ma saari doono cabsida haddaan cabsida luminaynaa right now qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynayo oo challenge-ga weeye